waayahay bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiy bacda. ardayay insha allah maanta waxaan qaadanaynaa haddii al yidhaahdo sida dashboardka loo naqshadeynayo webka. hore waxaan usoo qaadanay sida login systemka loo pagekiisa ugu horeeya loo naqshadeeyo iyo sida maxay ahayd database iskugu xiro. waxaas oo dhan waan soo qaadanay, hase ahaatee dashboardka wuuna dhumaya. marka haddaan ku laabano systemkeena aan soo kiciyo localhost slash login system, haddaan intaas aan dhaho kadib waa kana redirectooda oo soo kaca. waa kana waan sameysanay usernameka bas. marka meeshan usernameka gelinaa ismaan intan passwordka gashana kadib waxaan leeyahay login aan leeyahay. login markaan dhaho had usernameka passwordkan dabcan databaseka kasoo akhrinayaa. marka maanta waxaan qaadanaynaa insha Allah inaan pagekan aan naqshadeeno welcome to dashboard haduu leeyahay, balse ma naqshadeysana. marka in aan naqshad aan saarno qaybtiis koowaad, qaybtiis labaadna in aan database ku xirno aan gudagelayna haddii ay yidhaahdo. marka waan codkan bilaabeynaa. waxaan sameynaynaa, waxaan soo furanaa failashan dashboard.php iyo meesha ay yaalaan sublime text taga file aan leeyahay. kadib waxaan leeyahay open folder aan leeyahay. open folder markaan dhaho kadib waxaan tagaa zamba meesha oo htdocs meesha u yaali. dabcan waxaa igu qoran login system ayaa igu qoran. waa kana login systemkan dooranaa kadib waxaan leeyahay select folder. qaabkaas oo furaa inta marka shaashada minimas iska dheh. waa kana dashboard.php failka u socdo waa kana soo ma jeedid welcome to dashboard. marka maanta kanaan ka shaqeynaynaa insha Allah. marka waxaan ku hormaraa titleka titleka waxaa leeyahay login system slash dashboard aan leeyahay. kadib dabcan css ka hadda midka waxaa sameysan oo login page ka sameysan. marka dashboardka css gaara raba inaan u dhigo. marka css ka dultagaa waxaan leeyahay new file aan leeyahay. fileka save as waxaan ku save gareysanaa dashboard.css aan leeyahay si oo css kaas loo ogaado inuu dashboardka leeyahay. waayahay dashboard.php aan ku laabanaa. dabcan kan waan iska tirtiraa oo heshtooda tirtiraa. kadib waxaan leeyahay div aan leeyahay. divka marka id oo waxaan siinaa container. waxaan rabaa containerkayga inaan ka dhigato div id container aan leeyahay. sidoo kale div kala abuuranaa divkan waxaan siinaa id oo waxaan siinaa oo sub1. id-gan waxaan ka dhigaa oo macnaha dashboardka listigiisa meesha ay kasoo muuqdaan. dabcan dashboardka laba qaybood aan ka dhignaa. qaybtan dhinacan jirto oo bidix jirto waxaan rabaa inay listi kasoo muuqdaan. qaybtan dhinacan ama form ama table waxaas inay kasoo muuqdaan. marka sub1 waxaan ka wadaa marka qaybtan oo listi aan kasoo muujinaa ka wadaa insha Allah. div id sub1 aan leeyahay. marka kadib waxaan sameysanaa unordered list aan sameysanaa. waxaan leeyahay unordered list kadibna listi aan furanaa. listigan waxaa u baxsanaa markii koowaad waxaan leeyahay dashboard. kadib hadana linki aan gashanaa href equal linkiga waxaa leeyahay dashboard.php. okay waan iska xiraa linkiga. marka intaana soo koobiyeysanaa waayo waxaan rabaa in aan u sameeyo pageska aan u sameyn doono linkiyada dhan. intana v aan leeyahay mar saddexaad iyo mar afaraad. inta marka waxaan ka dhiganaa dashboard. inta waxaan ka dhiganaa waxaan leeyahay users. intan waxaan leeyahay users.php. waayahay inta waxaan ka dhiganaa users waxaan ka dhiganaa employees. intan waxaa leeyahay employees.php. okay inta waxaan leeyahay
inta waxaa leeyahay customers sidoo kale customers.php waayahay markaasaas listigiisa u diyaarsado. hadda aan page-keena daa ku laabto oo refresh aan dhaho waxaa arkaysaa listigii inoo ii soo galay. marka hadda listigii waa diyaarsaday oo dashboardka waa kana waa diyaarsaday. dabcan ma qurux badan oo qurxinaynaa insha Allah qayb CSS ka ku qurxinaynaa. dabcan sub1 meeshaas ayuu naga dhamaaday insha Allah. waxaan galeynaa sub2 anoo container ku dhex jiro. xasuusnaad diffkan waxa waaye containerka soo marka magac u baxsanaa si uu hadhowdi aan u xasuusto. waxaan leeyahay ndf container leeyahay kan waxaa leeyahay ndf sub1. waxaa magaca u baxsanaa waxay tahay si hadhowdi oo aan u kala fahmo macnaha. marka container kala furanaa andoo sub2 aan furanaa. waxaan rabaa dhakan dhinac oo ka soo baxay div id. marka waxaan leeyahay id ga waxaan leeyahay sub2 marka waxaan rabaa sub2 ga inuu ka soo muuqdo formka. dabcan action page-kan formka action equal dashboard.php actionka ka dhaca. methodkiisa waxaan leenahay post waaye. dabcan post iyo get waxay kala duwan yihiin shalay aan soo qaadanay. marka waxaan leeyahay labelka iska xiraa. marka label 4 aan siinaa. 4 waxaan ka wadaa macnaha labelka iyo inputka inay isla hadaan rabaa. marka 4 waxaan leeyahay name aan leeyahay small letter in laga dhigaa fiican. intan waxaan leeyahay marka name. inta waxaa leeyahay marka input tabka waxaan ka dhigaa text. name magaca waxaa u isticmaalaa in database kan ku xiraa u isticmaala macna name equal name aan leeyahay. kadibna id ga waxaa leeyahay name kaasaa leeyahay. kadib waxaa leeyahay br. waayahay intaana koobiyeysanaa. marka intaana koobiyeysanaa hoos usoo dhiga. marka la koobilay 2 3 4 intaas thinking. waayahay inta waxaa leeyahay tell. intan waxaa leeyahay tell. datadan waxaan rabnaa inaan hadhowda aan database aan ku shubno macnaha aan soo aqrino. okay just iska had sample waaye. intan tell id gan waxaa leeyahay tell. id gan wax kale ma ahan labelka iyo wuxuu sheegaa macnaha iyo input tabka inay isla yihiin. okay intan waxaan leeyahay address. sorry 3d ay gan noqotay address. 4 waxaan siinaa address. name ka waxaan leeyahay address. id gan waxaan leeyahay address. okay name tell address. I think intaas waynu filan tahay. dabcan employee details ahaan la karo available. inta waxaan leeyahay h4 xir. waxaan leeyahay enter employee details. so marka name tell address midkan kale ma u baahan. employee-geena hadda intaasaan ooga baahan nahay. kan waa iska dileeda. kadib waxaan leeyahay input tabka waxaan diyaarsanaa submit. nameka waxaa dhahaa submit. dabcan value ma loo baahna balse directed inuu value wax ka muuqdo. tusaalahaan oo kale hadda value-gan waxaan leeyahay save. hadda markaad save aan haddaa page-kan ku laabto aan refresh aan dhaho waa kana waan diyaarsaday. formkeygana waa kana waa diyaarsaday. marka hadda marka waxaan galaa css ka galaa. diffkan aan magacaawdo
aan calaamadeysay hadhowdii aan ula indi of waxaan leeyahay sub2 waayahay dabcan waan diyaarsaday hadda listiga oo dashboard waan diyaarsaday iyo sidoo kale formka inta kasoo muuqanay marka hadda waxaan u gudbaa marka CSS hadda wax CSS ma lahan soo maahan dabcan meesha waxa ka fahmaysiin CSS muhiimadda ay leedahay macnaha oo la'aanteeda page ama website ma la dhisi karo CSS sidaas ayay muhiim u tahay marka hadda waa la yiraahdo CSS kiisan guda galeena insha Allah waayahay dashboard CSS aan tagaa horta waxaan xiriirinaa CSS ka iyo waxaan xiriirinaa iyo page kana xiriirinaa waxaan leeyahay linki CSS/ folder kaas ku dhex jira ileen dashboard failka magaciisa .css marka CSS ka tagaa dabcan waayahay CSS ka dheh dashboard.css waayahay kadib waxaa leeyahay body waxaa leeyahay font family-geega waxaan ka dhiganaa dabcan xarta ka dhigi kartaa inshallah waxaan umaleynaa sans serif waxaan ka dhigaa latu kadib font size waxaan leeyahay 16 pixel okay bad intaas aan uga baahannahay kadib hash container ka sameysana hash container aan leeyahay width ka waxaan siinaa 80 boqolkiiba sababta uu dhigo waxay tahay waxaan rabaa inuu responsive noqdo hadaan pixel dhaho responsive ma noqonayo macnaha width ka 80 boqolkiiba ha ii ahaadaan leeyahay dabcan width ka 80 boqolkiiba ha ii ahaado waxaan kaloo siinaa dabcan font ma u baahna intaana horta aan ku fiirino hadda aan ku laabto aan refresh aan dhaho wili wax isbedel ma dhacaan markee container in aan u sheego waaye in uu leeyahay hadda isbedelka yar dhacay waa baadiga aan siinaa marka container ka u asaan gareynaa waa kana id container ha okay horiya u lahay samiya waayahay div id container hash container waayahay waa qaatay marka waxaan sameynaa waxaan leeyahay padding aan leeyahay in uu kasoo sikado meelaha aan leeyahay 20 pixel kadibna waxaan leeyahay margin علي دحدا إمادو زيرو أو معنا 20 بيكسل كان وحن كودا توب كان وحواميد كان وحط لما ما توب كره كسوسي كدو left right bottom top left right bottom قاب كسو معنا إنه كان توب أو كسوسي كدو مركا مرجين زيرو أو مركا تدسان أن سيف عنده سيف هذا سيف عنده أن ريفرش عنده container كان دحدو إيمانا معنا ما دام عن دحدو شواك ناس حوغانا صوصي كذا هاي ويلب حافي عن وحير إن أسمي background color سي أموكو حالي background color كيس حالي هاي هاش جريو كده دان refresh عنده background color نسي دان refresh عنده واكنا قاب كانوا سمستي marka waxaan leeyahay min high waxa way mar walbo oo wuxuu la soconaa high-ga oo elementiga la soconaa marka waxaan iska leeyahay 450 pixel soo kale inta waxaan leeyahay border minus radius waxaan leeyahay 8 pixel hadda dan save ando refresh aan ku laabto akana baadigan qaabkan oo noqday marka waxaan sameeynaa marka hadda containerkayga dabcan waa diyaarsaday min haygiis iyo wixii waa diyaarsaday marka waxaan rabaa qaybtan oo employee list dashboard-ka inay dhinacan ay ku hartaan rabaa qaybtan kale oo form-kana inay inta marto qaabka aan sameeynaa marka waxay tahay inaan float aan u baas gareeyo qaybtan waxaa leeyahay float liftigan ku harto
qaybtan waxa la float intaan ku harto midika ku harto marka waxaan u laabanaa waxaan tagaa css aan tagaa hoos soo deganaa waxaa leeyahay hash sub1 ilaan embody ilaan list dashboard listigiisa waxa ay siisan id sub1 marka hash waxaan leeyahay sub1 aan leeyahay float waxaan leeyahay left ha ahaado inta save leeyahay hadda daan ku laabto aan refresh aan dhaho wuxuu sameynaa qaybtan dashboardka left oo ku haraa macnaha left oo ku haraa waa kana dabcan kan waxaan leeyahay hash sub2 asagana waxaa leeyahay floatkiisa ha ahaado right ha ahaada leeyahay hadda daan save dhaho aan ku laabto aan refresh aan dhaho asagana kanna right oo igaada balse wuxuu igaaga baahan yahay inaa width inaa saan galay waa kana soo ma kan left uu aaday kan right bas aad u kala dheeraaday marka width aan siinaa okay sub1 aan ka bilaaba widthkiisa waxaan ka dhigaa 30% waayo asiga 30% sababta uu dhigaa waxay tahay waxa la rabaa kaliya in uu inta noqdo oo midkaana weyn macnaha oo formkani waxaan marka kan oo bidixdan 30% ha noqdaan leeyahay midkan sub2gana widthkiisa ha noqdo 70% macnaha boqol oo kala qaybinaya kan waxa leeyahay 70% kadib save aan leeyahay hadaan ku laabto aan refresh aan dhaho waa kana qaabkan isku soo dhawaadeen macnaha okay inta enough waaye kadib waxa ay dhiman marka qaybtan marka oo bidixda in aan marka aan hagaajiyo marka css keeda waxaan ku laabanaa intaan ku laabanaa waxa leeyahay hash sub1 waxa leeyahay ul list marka waxa leeyahay list style none list style none macna list style waxa waaye intaan oo tilmaamo hadda none hadda daan fiiriyo bullets kan way iga baxayaan macna bullets kan iska saara rabaa hadda waa kana bullets waa iska bixi balse saacada hoos iskaaga jiraan soo maahan listig hoos iskaaga jiraan waxaan leeyahay badin leeyahay macna badin waxa waaye elementi gudihiisa hadda gudaha iskaaga sakanayaan okay bas margin hadda dhaho waxa waaye containerka iyo waxa inta u dhaxayso waa listiga intaas margin qaadisan balse badin waxa waaye labadan list inta u dhaxayso qaabkaas oo kala duwan yihiin badin margin marka hadda soo marka xoogaa u kala sikado waxaan leeyahay badin leeyahay badin waxaan siinaa I think 10 pixels enough okay hadaan ku laabtaan refresh aan dhaho xoogaa marka oo kala sikana waa kana listiga waa kana sababta qaabkan u samaystay waayahay haddaan font size ka waan kordhi karaa listiga font size ka waxaan ka dhigaa 18 pixel oo kale dheh font size 18 pixel haddaan ku laabto xoogaa farta way soo weynaanaysaa kadib waxaan rabaa linkiyadan oo samaystay in aan iska reebo macnaha waxaan leeyahay marka hash sub1 ul list elementi inta soo maahan waxaan leeyahay marka text decoration waxa waaye inay linkiga ay highlight garayso waxyaabahaas waa marka text decoration kiisa waxaan leeyahay sorry waxa qoray maxaa waaye text decoration ka none ha ahaada leeyahay marka hadaan ku laabto refresh aan dhaho halkaa text decoration ka none aan noo soo baxay soo kale colorka blue waa soo maahan colorkiisa waxaan siinaa madow aan siinaa madow markaan siiya hadaan ku laabto aan refresh aan dhaho colorka kana madow qaatay kadib waxaan siinaa maxay ahayd hover aan siinaa waxaan leeyahay hash sub1 macnaha waxaan rabaa hoverka waxaan hadda idin tusaan hover waxa laga wadaa markii la dul geeyo mouse markii la dul geeyo elementiga waxa soo muuqanaya waxa loo yaqaanaa action ka dhacay hover la marka hoverka waxaan ka dhigaa inuu background ahaado macnaha marka waxa leeyahay hash sub1 ul list hover waxa leeyahay background colorkiisa marka la dul geeyo background colorkiisa ha noqdo cadaan haddii aan save dhaado ku laabto aan refresh aan dhaho waa kana background colorka cadaan noqdo soo ma balse ujeedid hoverka macnaha background colorka iyo elementiga hoos iskaaga jiraan macnaha sax
okay padding qaabkaas oo noqdo waxaan ku xalinaa insha Allah waxaan ku daraa padding aan ku daraa barka si oo soo sikada macna padding waxa leeyahay 10 pixel save gareena aan ku laabana di aan refresh hadda aan dhaho okay hover saas oo noqdo cool samahan kaliya waxaan rabnaa in oo noo tilmaamo rabnaa waayahay marka waxaan kan marka waan ka dhamaaday dabcan kan waan ka dhamaaday wilibo waxaan u maleesaa fontiga inay yarta kan xoogaa marka listiga fontiga balaari waxaan dhahdaa 25 pixel marka waan ka dhamaaday hadda waxaan guda galaa formkan inaan xaqiijiyo in aan css ka aan ku daraan asigana qaabka u soo muuqanayo horrible waa soomahan waa qaab daro waa name wax dhan waa isdhax galeen macnaha labelka inputka wax dhan waxa css ku hagaajina insha Allah waxaan u imaanaa css ka aan tagaa horta elementigan waxay ku dhex jiraan sub2 ay ku dhex jiraan id-ga sub2 marka waxaan leeyahay hash sub2 kadib wuxuu kaga sii jiraa form kadib waxaan rabaa label aan rabaa soomahan qaabkaas oo magacaaba labelka marka waxaan leeyahay displayga ha noqdo inline block ha noqdo inline block markaan dhaho maxaa dhacay macnaha in oo maxay ahayd labelka iyo waxaan dhan inay isku block noqdaan macnaha hadda isku block ma way kala dheerihiin soomahan inline block displaygiis noqdo soo kale wuxuu igaaga baahan yahay width-kan waxaan siinaa 120 pixel hadda dan ku laabto marka refresh aan dhaho waa kana qaabkan noqotay marka waa kana soo mujeedid way kala sikadeen macnaha oo qaab qurxan ayaa noogu soo baxay marka labelka fartiisa marka xogaa weyneyna waxaan leeyahay font size waxaan leeyahay 16 pixel okay waayahay 16 dabcan waxba ma isbedelay soomahan waxaan leeyahay 20 aan leeyahay kadib maxay ahayd waxaan rabaa kan inaan xoogaa kala sikado intaan horta aan refresh aan dhaho css ka markii ku jiro waxaan jeclahay isbedel walba inaan hore aan wax ka dhaho waa kana name tel address weliba xoogaa widthkan aan yareeyo maadaama 110 aan dhaho hadda aan ku laabto refresh aan dhaho weliba hoosta kusoo geli waayo font size-kayga ma balaarna taas waxaa lagu talagalay markay font size-kaada ay balaaran tahay macnaha hadda daan refresh aan dhaho qaabkaas marka meeshaan marka oo labelka maya maxay ahayd labelka font size-kiisa marka wax yar aan ku daro 25 oo kale aan dhaho hadda daan ku laabto refresh aan dhaho waayahay qaabkan oo noqday marka sidiisaan ku dhaafaa insha Allah marka waxaan sameynaa kuwan waan kala sikinaa oo elementiga hadda namekan iyo waxyaabahan hoosta iskaaga jiraan soomaan marka waa kala sikinaa waxaan leeyahay hash sub2 form kadibna wuxuu kaga sii jiraa input tab-ka marka in aan tilmaamo waaye waxaan rabaa tab-ka markuu yahay textiga markuu yahay rabaa input tab-ka la marayo waxaan leeyahay margin minus bottom hoosa kasoo sikadaan leeyahay 15 pixel haddaan save dhaho hadda aan ku laabto browserkayga aan refresh aan dhaho waa kana waa kala sikada soo mahan waayahay widthkiisa haddana balaarinaa waxaan leeyahay width ha ahaado tusaale ahaan oo kale widthka waxaan ka dhigaa 40 boqolkiiba haddaan ku laabto refresh aan dhaho waayahay widthka saas oo noo noqday haagan inaan ku daro waaye haagana waxaan leeyahay 30 pixel oo kale haddaan ku laabto aan refresh aan dhaho waayahay
qaabkan oo noqday marka waxaa moodaa xoogaa in ay hayga inuu ka badan yahay marka hayga waxaan leeyahay sodilaba aan leeyahay soo kale kan waxaan ku daraa markuu saan yahay ma qurux badna dabcan waxaan ku daraa border minus radius ku daraa ama season ku dhaaf hadda daan refresh aan dhaho okay widthka sidaan qaabkan waa ku baxsaday name tel address okay employee details intaas ugu baahan kadib waxaan sameynaa save kan ayaan dhexda keenaa macna intaas sameynaa waxaan leeyahay hash sub2 from input tabka submit markuu yahay tabka submit markuu yahay widthkiisa width aan siina width aan siina waxaan ka dhigaa tusaale ahaan oo kale 40% haygana waxaan dhahdaa like 8 pixel oo kale hadda daan save dhaho aan ku laabto browserka aan refresh aan dhaho wow widthka aad u balaaran yahay aan yareeyo aan dhaho 20% haygan aan dhaho 35 dhacaan fiirinaa kadib waxaan rabaa hayga wiiluu yar yahay widthkan uu balaaran yahay hayga 40 pixel dheh kadib waxaan rabaa inuu badhanka dhexda noqdo marka meeshaan marka waxaan dhexgelinaa label aan dhexgelinaa waxaan leeyahay label dib save waxaan leeyahay refresh waayahay intaasaan ku dhaafaa waxaa ii dhiman background color aan siinaa oo la dhamaado background colorkiisa ha noqdaan leeyahay orange farta colorkeedana ha noqdaan leeyahay caddaan intaas marka daan ku laabto aan refresh aan dhaho waayahay wax border soo samaysta camal waa marka waxaan leeyahay border none aan leeyahay so borderku samaysanaa meesha ugu bixiyo haddaan refresh aan dhaho borderka wuxuu ku bax marka fartaan oo safeka aan balaarinaa macnaha okay kana qaabkaas farta safeka aan balaarinaa marka waxaan leeyahay font size waxaan ka dhigaa 8 pixel oo kale okay refresh dheh kadib waxaa ii dhiman waayahay fartan xoogaa waa kana way muuqataa marka waxaa ii dhiman in aan hoverkiis inaan u sameeyo marka intaana koobiyeysanaa mar kale qolasa u fahamtiin waxaa leeyahay hash sub2 from input tabka markuu yahaan leeyahay submit labadaas dhibic waxay sheegaysaa hoverka ay tilmaamaysaa elementa extensionka marka waxaan leeyahay cursorka ha ahaadaa leeyahay markuu cursorka dul joogo pointer ha ahaado soo kale background colorkiisana ha ahaadaan leeyahay caddaan sidoo kale borderna waa u sameynaa borderna waxaan leeyahay 2 pixel solid madow ha ahaado borderka soo kale colorkan waxaan ka dhigaa oo colorka farta asigana madow aan ka dhigaa saddex intaasa sameeyay macnaha oo hoverka intaasa duliyay hadda daan refresh aan dhaho marka laptopkaas submit button-kana waan diyaarsaday marka maxaa ii dhiman waxa ii dhiman malahan kaliya fartaan inta employee details waxoogaa aan colorka u bedelaa farta inter employee details h4 ay ku jirtaa soo maahan oo sub2 ah
marka waxaan leeyahay hash sub2 h4 color ka ahaada leeyahay tusaale ahaan oo kale dark green oo kale aan ka dhigaa dark green ahaado okay waayahay font size ka waxaan moodaa in xoogaa ay 40 yar tahay font size waxaan siinaa 8 pixel aan ku laabto aan refresh aan dhaho waaya qaabkaas oo noqday balse wuxuu sameeyay waxaan inoo soo sikiyay marka waxaan sameynaa kan fontigiisa ahaado waxaan ka dhigaa meesha hadda h4 ka yahay waxaan ka dhigaa h2 aan ka dhigaa intan waxaan leeyahay h2 where's kana h2 kan waxaan leeyahay h2 kulaabana waxaan leeyahay refresh aan leeyahay okay marka meeshaan marka bis way dhamaatay macnaha dashboard users in waan diyaarsaday